Bismillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kusoo jirnay casharadeenna aynu uga hadlaynay barnaamijkan Adobe Illustrator. Casharkeenan maanta haddii la yidhahdo waxaan uga hadli doonaa qaybaha hore ee toolska. Kuwo kale muhiimkana casharo gooni ah waan ka samayn doonaa haddii la yidhahdo. Marka casharkeena maanta intan hore ayaanu qaadan doonaa selectionska iyo type toolka iyo shapeska intaas aynu soo raacin doonaa. Maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij loogu talagalay in logooyinka iyo vector waxyaabaha vectorka lagu sameeyo. Marka toolskiisa inta ugu muhiimsan la isticmaalo ayaynu haddii la yidhahdo casharo gooni ah ka qaadan doonaa, laakiinse qaybtan ugu horeysa maanta hal cashir baynu ka dhigi doonaa. Marka toolka ugu horeeya waa selection toolkaas weeye. Mid walba shortcutkiisa kuu soo bixi doona markaad u baahato inaad isticmaasho markaad u dhaweyso ayaad arki doontaa. Marka move toolka hadda marka la joogo halkan waa V weeye. Marka si move toolkan shaqadiisa aan u fahanno waxaan soo qaadan doonaa shape markaan saa u soo qaadano move toolkan haduuna inoo doorayn ma qaadi karno, laakiin move toolkan markuu inoo dooran yahay waxay ka dhigan tahay shaqadiisa aan samayn karno waxaa weeye marka ugu horeysa move toolka haddaynan haysanin shay kale aan soo qaadano tusaale kale aan doorays dhahno inooma doorayo shaqo kale uu qabanaya. Haddaan kan tagno kale isaguna sidoo kale inooma doorayo. Move toolka labada shaqo ugu muhiimsan inoo qabanaya waxaa weeye inuu inoo dooro shaygii marka ugu horeysa sidoo kalena uu inoo qaadi karayo move halka laga keenay macna ahaanba waa marka qaadid weeye marka inaan sii jiidi karayno. Marka kaas ugu horeeya move toolka shaqadiisu waxa weeye inuu shay kugu dooro marka hore, shay adoon doorinna waxba kuma samayn kartid. Marka inuu kugu dooro iyo inuu sidoo kale kugu dhaqaajiyo labadaba wuu ku awoodsiin karayaa move toolku. Labada calaamada yar ku aragto toolka ee hoosta falaadha yar waxay ka dhigan tahay kuwo kale ku hoos jira. Marka si aad kuwa u soo muujiso waxaad taaban doontaa mouse-kaaga dhanka right click ayaad nabi doontaa kadib saas kugu soo bixi doonaa. Marka hadda direct selection tool iyo group selection tool baa inoogu jira meeshan. Direct selection toolka hadda wuxuu qabta si aan u fahanno tan oo kale hadda markaynu soo doorano direct selection toolka wuxuu inoo samayn karayaa edgeskaas inaynu soo qalqaloocin karno. Tusaale haddaan hadda kaa qabano click ku siino aan saa u soo jiidi karayaa. Marka haddaan laakiin click ku siino mid kaa qabto hal mar buu wada wareejinayaa dhammaantood oo circle buu ka dhigaya. Marka haddaad ku celinaysana halkii unbaad qaban hal gees haddaad rabto inaad ku celiso saas oo kale saasaad samaynaysaa. Haddaad dhammaantood ku wada celinaysana hal mar intaad qabato ayaad saa ugu celinaysaa. Marka hadda fiiqaas ay lahaayeen marka haddaad u baahan fiiqa aad rabin direct selection toolka wuxuu ku awoodsiinayaa inaad hoos u soo jiidi karto saas samayn kartid geesaska aad soo qalloocin karto. Group selection toolka tusaale haddaan group ka dhigno kan group markaad ka dhigaysana waxoogaa markaad qabato alt intaad la qabto ayaad jiidi doontaa kadib mouse-kaaga sii hordeen adigoon clickta sii deyn clickta mouse-ka ka kac markaad alt adoon haya kadib saas group buu kugu samayn doonaa. Marka si aan u fahanno kuwan aan group ka dhigno marka mid kale aan arkayno waxa weeye waa group selection tool. Group selection toolka wuxuu kuu qaban doonaa iyagoo isku group ah ayaad mid haddaad u baahato inaad wax ka beddesho aad wax ka beddelka ku samayn kartaa keligii adigoo macnaha aan kala qaadin oon samaynin kala qaad hadda haddaynu samayno group bay isku yihiin still laakiinse hadda midkaas ayaynu wax ka beddelnaa. Marka group selection toolka waxa weeye adigoon iyagoo hadda group isku ah oon groupkii ka saarin inaad midkaad u baahato aad wax ka beddeli kartid ayaa group selection toolka uu ku awoodsiin karayaa. Haddaan hadda kaa taabano kaa keliya ayaynu wax ka beddeli karnaa haddaan kalarkiisa beddelno hadda dhammaantood select bay noo saarayeen kaa keliya iyagoo isku group ah marka hore aan soo doorano kan keliya aan rabnaa inaan wax ka beddelo hadda kadib marka waxaan samaynaynaa kalarkiisa inaan beddelno marka waa ujeedaa qaabkaas oo kale inoogu noqonaya. Inuu isla halkiisii ku celinayno halkii maan tegaynaa kadib kalarkiisa aan siinaynaa mar kale. Marka magic one tool baa inoogu xig oo isaga kiisu uu y yahay isagana marka waxaan u isticmaali doonaa wuxuu isagu qaabka u shaqeeyo waxaa weeye waxyaabihiis ku kala inuu hal mar kugu wada dooro. Tusaale haddaan kan doorto saddexdan buu wada doorayaa oo haddaan wax ka beddelis dhahno saddexda hal mar buu ka wada beddeli doonaa. Sababtu waxay tahay wixii isku kalar oo macnaha uu dooraya isagu midkaas marka waa ujeedaa saddexdaas ka wada beddelmi doona. Haddaan mar kale ku celino marka aan group aan dhahaynaa marka labadan baan isku kalar ka dhigaynaa. Si aad u fahanto kan geeska iyo ka kale aan ka dhigno kaas iyo kaas aynu isku kalar ka dhigaynaa. Marka hadda labadaas isku kalar group baynu ku celinaynaa. Marka groupka markaad sameynaysana right click intaad dhahdo halkaas group baad ka oran kartaa control G shortcut ahaana waad isticmaali kartaa. Marka hadda group bay isku yihiin magic one tool markaan soo doorano labadan buu hadda inoo doori doonaa markaas hadaynu ku laabano marka waa ujeedaa labadaas uu inoo qaadi karaa haddaan move toolka haddaan ku laabano labadaas wax ka beddeli macnaha dhaqaajin oo dhan labadaasaan ku samaynaynaa. Marka waa magic one toolna qaabkaas oo kale uu shaqeeyaa. Marka waxaa inoogu xiga magic one toolkan isagu wuxuu noo qaban doonaa sidii hadda group selection toolka oo kale weeye laakiin kan aad dooranaysid oo saasaad ula raaci doontaa
iyagoo macnaha guriga ku wada jira. Hadda markaa sidaa u dhamaystirto labadaasaad waxaad ka bedelkaad rabto ku samayn kartaa. waa isla labadaas un. marka isaguna qaabkaasoo kale u shaqeeyaa. waxaad sidoo kale samayn kartaa inaad hadaad u baahato labadan keligood aad sidan samayso. labaduna hadda marka uu isbedelku ugu dhici doona hadaad wax ka bedel ku samayso. tusaale kalarka aan ka bedelo marka waa kaas isaguna qaabkaasoo kale u shaqeeyaa lazy toolku. waxay inoogu xigoon fahmaynaa pen toolka inoogu xiga. pen toolku isaguna mid aad u muhiim ah, cashir gooni aan ka samayn doona, laakiinse marka hore hadda qaabka uu shaqeeyo inaad fahanto isku day. marka isaga qaabkaad u isticmaalaysa waxaa weeye click baad meel ku siin, haddana meel kalead click ku siin, haddana meel kalead click ku siin, haddana kadib markaas wax kale click baad ku siin ilaa 4 jeer markaad wareejiso ayuu ku xiri doonaa. marka isagu shape alla shape aad u baahato ayuu kuu samayn doonaa oo custom shapes baad ku samaysan kartaa. isaga loogooyinka iyo badanka waxaasa lagu sameeyaa. marka isaga cashir gooni aynu ka samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. laakiinse haddaad u baahato marka inaad line toos ah samayso oo kale, hadda markaad sidaa u qabato hadda wuu iska qalqaloocan yahay, laakiin shift haddaad la qabato line toos uu kuu samaynaya qaabkaas oo kale. marka fallaadhan yarta haddaad u baahato marka linekaas un bes aan rabnay oo aynaan u baahnayn inuu aynala sii socoto qaybtan kale, si aynu iskaga reebno waxaan taaban doonaa ES key halkan keyboardkaaga ay ku qoran tahay ayaad halkaasaa taaban doontaa. kadib marka wuu ka hari doonaa. kadib markaasaad waxaad u baahataa aad ka dhigan doontaa. hadda stroke aan u bedelo waa lineka badanka stroke buu yeeshaa. marka waa ujeeda hadda linekaas oo kale haddaad u baahantahay inaad samaysato isagana pen toolka ayaad qaabka ugu samaysan doontaa. marka sidoo kale isla pen toolka haddaad u baahan tahay shay inaad wareega samayso ama curve aad samayso, markaad saa u qabato adigoon halka kale markaad kala ku siiso adoon sii deynin ayaad saa u qaban doontaa. mouskaaga adoon sii deynin ayaad dhinacaad rabto ayaad wareejin doontaa. sidoo kale haddaad marka aad u baahan tahay inuu fallaadhan ay ka aad iska soo xidho alt intaad la qabato ayaad kusoo celin doontaa. tusaale hadda qaybtan baa waxaan rabnaa inuu wareegaas inuuna inoo noqonin. marka si halkaa markaynu nimaadno calaamada yar aynu siiso, meelaha kale markaan joogno calaamada yar fallaadha yar ma arkayno. marka halkaas markaynu joogno laakiin waan arkaynaa. kadib alt baan la qabanaynaa, click baan ku siinaa, marka wuu naga harayaa. hadda halkeeda kale haddaan kusoo xirno saa u soo jiidno marka waa kaas hadda saasuu kugu samaysan yahay. haddaad u baahato shape baad u bedeli kartaa. marka calaamadahan yararka iyagana waxaad samayn doontaa waad direct selection toolka intaad ku laabato ayaad macnaha iyaga waad ka hagaajin kartaa. haddii markaa wax ka qaldamo saasaad u samayn kartaa, u sixi kartaa. marka pen toolkuna isaguna qaabkaas uu shaqeeyaa. qaybaha kale ku hoos jiro isaguna anchor point way. anchor pointiga iyo waxaas aan u fahanno kanaynu soo qaadan doonaa. marka qaybo kale ku hoos jira pen toolka waa add anchor point, delete anchor point tool inta kuwayagaas ku jira. marka kuwaas aan u fahanno shay baan soo qaadanaa afar-gees ah. shaykan marka hadda afar-geeska direct selection tool baa tegayna. hadda wuxuu leeyahay waxay ujeedaa afartaas buu sheegay anchor points. marka la leeyahay waa qaybtaas anchor pointigaas iyo midka kale iyo midkan kale iyo midkan kale afartaas uu leeyahay. haddaan qaybo kale kusoo darno macnaha haddaynu kuwaa taabanay imika tusaale kale haddaynu kaa dhabno saas waan u soo jiidi karnaa. wax saas oo kale waan samaysan karnaa. marka kan sidoo kale laftigiisa haddaan u baahannahay saas waan samayn karnaa oo triangle waan ku celin karnaa. marka kuwaas kuwo kale ma kusoo darsan karnaa. haa pen toolka halkiisii baan ku noqonaynaa. marka halkan add anchor point dhahayna kadib meeshaynu u baahannahay inaynu kaga darsanno haddaynu dhexda rabno hadaynu halkan u baahannahay click baan ku siinaa. marka wuu inoogu daraya halkan sidoo kale click. marka haddana labaynu kusoo darsanay meeshii aynu ka wareejinay hadda waxaynu ka wareejin karnaa sidaas oo kale aynu oran karnaa. kan haddaad u baahato waad iskaga sii falaadi kartaa waxaad rabto ka samaysan. marka wakaas baad iskaga baashaada qaabkaad u rabto markaad fahanto wax qaabka uu shaqeynayo. markaas waa add anchor point. anchor point marka lagu soo darayo haddii imika kuwii kusoo daray aynu ka saari karnaa. haa halkii waxaan ku laabanaa pen toolka. marka waxaynu aadaynaa meeshan ay ku qoran tahay delete anchor point. kadib markaynu soo darno kan u baahna halkan click ku siinana bas wuu naga baxaya. kana sidoo kale click wuu naga bixi. marka afartii ayaynu ku celinay. kan oo kale marka isaga qaabka aad u isticmaalayso waxaa waaye anchor point aan kusoo daro si kaas aan u fahanno. halkan aynu anchor point kaga soo daraynaa. kadib wax yar dib baynu u jiidanaa saad ila aragto. waxaan kusoo laabananaa pen toolka anchor pointigan aadaynaa. marka halkan markaynu qabano wuxuu noo samayn doonaa qaabkaas u fiirso. marka saas oo kale markaynu jiidkii waxyaabahaas oo kale samaynayno ayaynu qaabka u adeegsan doonaa isaga. marka hadda waa ujeeda wax saas oo kale ayuu inoo sameeyey. marka kan oo kale isaguna waa curvature toolku. isaguna qaabka uu shaqeyn waxa weeye qaab isagu yar wareega ayuu kugu sameynaya. markaad isaga wareeg kugu sameynaya. markaad adigu hadda qaab toos ah adigu hadda iska wata isagaa circle qaab yar wareeg oo kale camal kugu sameyn doona. marka isagu qaabkaas uu shaqeeyaa curvature toolkuna. marka waxay noogu xigaan arki doonaa type toolka. type toolku ilaa qaybahan buu ka kooban yahay. type waa kii caadiga ah taqaantay qoraalka lagu samayn jiray. marka type toolku waa kii qoraalka caadiga ah ku samayn jirtay. tusaale kale markaad wax qoranaysid saasaa samayn doontaa. markaad soo qaato meel baad click ku siin doontaa bannaan kadib markaas kuu qori doonaa. marka qaybaha kale si aan u aragno qaybahan kale ku jira isagana type area toolkan saan u fahanay. marka aan shape soo qaadano marka type area waxa weeye isagu kan waxoogaa aan stroke u bedelno
meeshan hadda qoraalkeena haddaan rabno inuu qoraalkeenu saan u qormo oo intan dhex gashano waxaynu aadi doonaa halkan type toolkan ku laabanaa type area nu aadi doonaa marka halkan baynu click ku siin doonaa marka qoraalkeenu wuxuu maadaama uu aad waaweyn yahay haddaan yaryareyno marka waxa qoraalkeena saas oo kale hadda qaabkii haddaynu ka qaadno ma la arkayo macnaha shaybkii lama arkayo laakiin qoraalkii baa qaabkaas noogu qoraya marka qaabkaasna waxaa loo yaqaanaa type area tool marka hadaad u baahan tahay inuu saas oo kale wax kugu qormo ayaad samayn doontaa sirka waad ka dhigi kartaa kolba midkaad u baahan tahay adiga ayaad ka dhigan kartaa hadda inuu wareeg ka dhigno stroke u bedel kadib type area tag halkan click ku sii marka waa qaabkaas kugu qordana waxyaabo malaha noocan oo kale u qoran inaad aragtaa laga yaabaa marka isaga waa qaabkaas oo kale type area qaabkaas loo isticmaalaa marka waxay noogu xigay isagana aan arki doonaa type on path kan saan u aragno shay baan soo qaadanay ellipse tool aan soo qaadano kadib saan dhahayna circle stroke baan wareejinaynaa kadib waxaan ku laabanaa halka type on path-kii marka type on path marka soo qaadato isagu qaabkaas oo kale wada camal weeye oo meesha hadda aad ku dhufato ayuu halkan noogu wareegi doonaa marka meelaha qaarkood loogooyinka iyo qaabkaas in loo sameeyo waad aragtay loogooyinka circle-ka qaabkaas baa loo sameeyaa kadib click baad ku siin halkaas marka kugu qori doona waxaad u baahan tahay marka qaabkaas wax kugu qori doona marka hadda ka qaado waad arkaysaa qaabkaas yar loogada camal oo kale kugu qori doona marka type on path-kuna qaabkaas ugu qori doona vertical-ku isagoo kii dheerka ah way tusaale hadda halka ku dhufato isagana waxaad u baahatay ku qori doontaa markaas isaguna qaabkaas vertical-ka ayuu kugu qori doonaa wax marka qaybahan aynu kaga hadlayna hadda qaybahan asaasiyaadka qaybahaas aan soo qaadanay mid walba qaybaha ugu muhiimsan cashir baan gooni ah ka samayn doonaa haddii la yiraahdo marka cashirkeena hadda aynu uga hadlayna qaybaha asaasiyaadka ee tooliska halkaas aynu ku ekeynaynaa khayr badan baan idiin rajaynaya subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk